halkan waxaa ila fadhiyaa gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada samafalka qaranka Soomaaliland Sheekh Dr. Saciid Maxamed Tarax. Sheekh waxaa jirta muddooyinkii ugu dambeeyay dalka waxaa muddo sanada ka howlgalayay shirkad la yiraahdo Forever Living Product. shirkadaas waxay soo saartaa waxyaabo dabiici ah oo ay ka mid tahay dacarta oo siyaabo kala duwan loo adeegsado. waxaa jirta shirkadaasi dadka wax ka iibsada marka iibsadaan waxay ka noqdaan qayb ka mid ah shirkadaasi iyagoo macaamiil kale hadii ay keenaan ku helay ujuuro. arrintaasi diinta islaamku maxay ka qabtaa ma bannaan tahay mise ma bannaan? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقمان هذا رضيق بلشتي في وان السلامية أدبق مهتسنتهين سواشينا أدان سواشا كسور دوادو كصاب سن كمبنيغان أتشكتيب فوريفر laba qaybood baan ayaan jawaabteeda u kala qaybinayaa. qaybi waxa weeyaan khibradda gaarka ah waan u leeyahay company-gan ama barnaamijkan. qaybta labaadna shariicada islaamka ama diintu maxay ka qabtaa? shariicada islaamka in waafajinayna marka ma la socotaa mise way ka soo horjeedaa shariicada. tan ku saabsan marka ugu horeysa khibrad ahaan dad badan oo familiga ama qoyska ama saxaabtayda ayaa company-gan xiriir la lahaa. waxay ugu lahaayeen wax kale maahay waxay isticmaali jireen alaabtan company-gu leeyahay. aniga laftarkayga alaabtan waxbaan ka isticmaalay hadday tahay baashan kilada deodoranta, hadday tahay cadayga lagu cadaydo, hadday tahay malabkooda, hadday tahay sharoobo la cabo oo lafaha adkaysa, hadday tahay tu kale oo akramakumullah caloosha socodsiisa ama caloosha maaragtay qofka bini'aadamka nadiifisa. product ilaa 7-8 ayaan ka isticmaalay. dabeetana dubi anigoo maraya baan haddana nasiib u yeeshay company-gii baan isiri balad amaba ay waxaa soo dadii barnaamijkan ay isticmaalayaan qaabkan suuq gelinta tan iyo waxan bal company-ga tagoo soo warayso oo bal arrinta ka daba tag. anigu company-ga waan tegay safarka anigu dubi dana kale u leh waan company-gii waan tegay ninka meesha haysta ee manager-ka company-ga oo dhan ee qaybtan Middle East ama Sharq al-Awsat ka mas'uul oo nin Tunisia oo nin fiican ah ayaa la kulmay. ninkii baan ka waraystay saa wax u iibisaan sidaa wax u samaysaan suuq gelinta sidaa u samaysaan maadadiinu maxay tahay. intaasaan oo taanu barnaamijyaan soo ogaaday. dadna waxaan soo ogaaday markaan shuruudihii suuq gelinta shariicada islaamku ay dhigtay in sidii xalaal uga dhigto ilaa 7 shardi. 7 shardi baan arkay oon si yani practical waxaan u arkay inay company-gani uu waafaqsan yahay shuruudaha loogu talagalay in yani shariicada islaamku ay fasaxday. horta marka ugu horeysa waxaan beec la yiraahdaa waxa la yiraahdo mucaamalaadka waxa asal u ah inay xalaal tahay. wax shariicada ama nasigu inaga horkeena mooyaane si guud wixii mucaamalaadki waa xalaal. ilaahay wuxuu waxala Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. waxaan jeclaynaa si fiican ba yani waqti hadisiisidon si fiican kugu sharxo. ilaahay wuxuu xalaaleeyay bay'a waxa naga xaraantinimeeyay ribada iyo noocyadeeda oo dhan. company-gani wuxuu iibinayaa alaabtaasi horta waa alaab xalaal ah. xalaal bay tahayo majliska ama fadhiga islaamiga ah ee cuntooyinka Mareykan ku yaala ayaa laga haystaa certificate in maadooyinkan dacarta laga sameeyay ku jira ilaa 200 oo alaabtoodu ilaa 200 oo nooc kala gedisan. 200 ee nooc inaanay hal shay oo xaraani aanay ku jirin ayaa cad. warqadaas certificate-ka waa la hayaa. marka waa xalaal. tan labaad waa muntaj ama waa product ama waa alaab fiican oo qurux badan oo waa doctor oo adduunku wixii USA ama Mareykan lagu sameeyay ugu quality fiican. Mareykan baa lagu sameeyay alaabtan alaab meel kale ama China ama America laga soo qaaday maaha. waa la Mareykan lagu sameeyay qish male tuuganimo male maxay ahayd isla wareegsi male dulmi male. wuxuu waa wax waadixa oo alaab la kala iibsanayo hadcad la kala qaadanayo weeyaan. waxa wax laga qaadanaya ama macaashka la qaadanaya waxa weeyaan waa faa'iido oo qofka banaadamka ku helayo juhdi dadaal soo jeed tababar u sameeyo. habeenkii waxa isla galaan 9 habeenimo WhatsApp bay leeyihiin. WhatsApp-kaas ninkii ku jiray uu sharxaya kadib faa'iidadaas ay leedahay tan kan ay leedahay kan sidan u iibiya kan sidan sameeya marka uu safraya qofkii marka Luqmaano wuxuu wax ku helayaa waa juhdi iyo dadaal iyo waqti iyo maskaxdiisu uu meeray oo meesha u galiyay. fiqhiyan xagga fiqiga waxa weeyaan ay mas'alad cusub masaajidna ma jiri jirin waa mas'alad cusub soo taswiiqda noocan ama waxan iibka noocani. dabeetana waa inaad shariicada islaamka toob u gelisaa hadday gelayso haddaanay gelayna marka wixii waa la diidayaa. culimadu waxay u taqaanaa beeca noocan ee company-gan sameeyo
جعالة وحلا يقانو جعالة وحي علماء كوكوا كلا يلاحظان وحي يلاحظان الوعد بالجائزة بلنقاد هدية جائزة أما هدية إن القف كهليو مركا جعالة الله يلاحظها إلهي سبحانه وتعالى جعالة كتاب كي سوينا وقف الصحي سورة يوسف إلهي سبحانه وتعالى وحو إنوش يجي آيات أردتها كهالليسا وشرح حيسا إن إلهي سبحانه وتعالى قفك بني آدم كاو وقلاضي إنه وح إيبن كارو إنه وح ديل أبال مرين لغو سين كارو وحي قفك بني آدم كي ولي يمادو تامر كان نكرن معدنه وحو إلهي جل وعلا إنه شيء ولمن جاء به حمل بعير قفكي لي مادة هلا وحنا لديديو وحويا أور يعني ررن أي قفك بني آدم كهلية ما كان وجهه يسدي اللي واجعله وح شريعة الإسلام كو تقانه عقدي قال ما هو عقدي لو يقانه وعد بالجائزة بلنقاد جائزة إن قفك بني آدم كدو وحي إيبيو إنه جائزة أما أبال مرين وقفك بني آدم كي وهليو عقدي قاني ماها سيدي ذلك علماء بريشيغيان لبا عقد بيعتين في بيعه لبا بيعو اسكو دخجرا او اورانيسا شار كان iga iibi ana shar kan ka iibinaya ta shariicada islaamku ma ogola waya sharkadu waxaad iibsanaysaa sharkiga waxaad iibsanaysaa yani qofku wuxuu iibsanayaa sidoo waxa kale uu helo maaha maadadan waxa loo baahan yahay qofku inuu iibsado wixii uu isagii doonayo isagii u baahan yahay laakiin marka labada baycadood waxa weeyaan in qofka bini aadanka adna kan iga iibi ana kan ka iibinaya bay'ateen fi bay'a balada ta shariicada islaamku ma ogola bay'i iyo sulfa maaha wax dil kala deynsanaya maaha wixii kaash baa lagu bixinaya waxa weeyaan sharti bay'i male oo wax sharti oo ku jira ma jiro bay'an wax taswiiqan waxa loo yaqaana ama suuq gelinta waxa loo yaqaana at-taswiiq ash-shabaki ayaa loo yaqaana taswiiq ash-shabakiga ama network wax loo yaqaano network ayaa loo yaqaana ta khibradii baan kaga yara sheekayaan oo aanu lahaa inaan waxaan ka dib tagay oo soo baaray waxaan kaga yara sheekayay shariicada islaamku si guud waxay ka qabto shuruudihii hadaynu degdeg u sheegno ay baashan ku ansaxaysaa haday sax tahay culimadu shuruuday u sheegtay taswiiqa noocana ee shabakiga loo harami maaha haramigu ka duwan yahay kan shabaki baa la yiraahdaa taswiiqa shabakiga in uu jiro product ama maadad la iibinaya oo la taaban karayo tii way jirtaa 200 maadadood bay hayaan dawladda adayga hayaan cadarkii bay hayaan kareemkii bay hayaan kii la cabay sharabadii bay hayaan wixii wax la taaban karayo oo waliba quality leh qofkuna uu iibsanayo sidoo ugu intifaacdo isagu uga faa'iideysto taasi waa koow tii way jirtaa marka kambanigeenni maadadii waynu haynaa 200 maadadood baynu haynaa oo la iibinayo ama 200 oo shay oo la iibinayo tii labaad culimadu waxay sheegeen in aan qofka bini aadamka markuu membership galayo ama uu xubin noqonayo inaan lacag laga qaadin imka hada wadaad istiraadii soo gal application talabaad buuxinaysa inaad soo galayso talabkaagii baa la qaadaya oo lagu process gareynaya number baa lagu siinaya numberka lacag lagaga qaadi maayo talabkaas aad soo gudbisay lacag lagaga qaadi maayo haddii lacag lagu yiraahdo bixi $50 oo fee ama $100 oo fee halkaas taasi xaraan bay noqonaysaa shardiga labaad way waafaqsan tahay oo talabka wax lacag laga qaadaya ma jirto ka saddexaad lagu oran maayo inta lagu qasbo qalinka iibso منتجك كايبسو لغو قصب مايو كي ادوني سيدا يبساتيد كي ادادو فائده اهانت كفائده سنيسد اياد لقمانو ادي ان شاء الله تعالى ادي بسنيسا ارنت لباد waxaan la kala qaadanaya waa cumuula waa commission oo kale waxa la isku haystaa commission kaas banaayim sama banaana commission kaas uu banaayo qofka bini aadamka ee dad keenay dadkaas uu keenay wixii ay iibiyeen ayuu commission ku yeelanay dadkii isagii baa tacabkiisii galiyay isagii baa u sharxaya isagii baa ka warhaya ta kale commission kan uu qaadanaya ku furan oo 300 qof oo keenay maaha 3 generation oo kaliya 3 talaabo oo kaliya ayuu wax ku qaadanaya maxaa laga wadaa ka tobnaad uu keenay ma bagaari karo وسكينة تطبو سي كاني وحي قفك ما كنترولي كرايو دول بين نقوني سما كانوا كوا wax ka qaato laakiin saddexdan group ama saddexdan generation waa saddex oo control karayo habeenkii telefoon isu dirayaan whatsapp ka wada hadlayaan facebook ka wada hadlayaan whatsapp ka isugu soo galayaan waa saddex group oo taladii iyo tusaalihii iyo culayskii iyo juudigii uu galinayo taana way ka soo baxeen taswiiqan shabakiga loo yaqaan waliba company-gan uu sameeyaa ballan qaadiya ma leh كمبنيه هرميga iyo qolooyinka kale waxay koodhanayaan multi millionaire baan noqonaysa hebel baa soo galay bishii hore 300 kun buu helay hebel waxa male wixii aad dadaashada aad qabatid baad wax ku helaysaa adiga iyo dadka kale ee waxa ka faa'iideystay ta kale waxa shuruudaha kamida in qofka bini aadanka maartay commission kiisa la siiyo oo la dulmin waxa kadalika kamida in laga ilaaliyo company-ga iyo taswiiqa iyo suuq gelinta waxa loo yaqaan qimaarka in laga ilaaliyo qararka in laga ilaaliyo beenta in laga ilaaliyo ribada intii oo dhanna waanu soo baarnayo company-gaasi qarar ma leh oo khiyaamo ma leh oo way muntajkii baa jira qimaari qarar toona ma laho muntajkii baa la taaban karayaa uu jira meeshii riba ma laho wixii wax la kala iibsanayo saddex wixina qofkii loo xisaabinayo beeci baa jira
والربا ماشى كمان مغضى تكله أكل أموال الناس بالباطل لما يشروا تدخلوا هذه اللي قد عيام الله خيامين ما يشروا هنصوت بالضوبة وحويا نقطة سؤال شو تكون ما هتصنتهاي إلهي وحنقوله ارتجيا كمبنيجا بارستيان تجيان صوباري شروطه فقه هاي قوة في شيء إن كمبنيجا سو حلالي هاي تكون أي كجنا عسن كران أو قف من هذيك منبر كنا كنكره وحويا شروطه أي نشجنا دو قف من هذيك كصبحه وحويا كمبنيجا إن شاء الله تعالى وحده بعطاء إن شاء الله تعالى مله قف من هذيك وسواس هاي سكيلاليو دعاية دي وحن الله بهرين هاي سكيلاليو وحويا قف كدوحي علم ولا قلنا صوب بندقه أدي أنا أقول ولا هاينا تجلس لسودري تلفون لسودرو لسكحد ليون سومالي هذا البادلي qofku ma ogola inuu waqti geliyo inuu baxthi sameeyo inuu wixii soo baaro inuu research sameeyo hebel baa yiri heblaaya tiri wixii xalaalna ku noqon maayaan xaraamna ku noqon maayaan war ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku cabsano wixii ilaahay noo xalaaleeyay iska xaraantinimaynin kambaniyada noocan oo kaleena hal la taageero in haramiga ahayna shabakiga hal la taageero shaqo gelin bay sameynayaan wadankii bay maadooyin cusub ku soo kordhinayaan imka product cusub oo Mareykan baa ay soo kordhiyeen dadkii bay shaqo abuur u sameeyeen waxa weeyaan qolooyinkii wax keenay baa faa'iido ku helay ummadii waa شغل مخايدها فديدا شقة أبور بمشي يمد وحنا سوكين الدولة دير جلسوا شعبكم دير جليو حي دعاية دقيقة وحن رخيص كأي بلا معناه يعني نسكيل علينا إنه ولاية سبحانه وتعالى كعب صنينا إلى خير كاينا وافق شيء دم بيجي كوال كيف الله دافو كم بني جاية كشقيني أنا خير بدون بنقول رجينيا وأنا نسود عينيا هذا ولا أديات بعض ما تنتهي